كولجكا برشدة علوم تعافيماتك ماما أمينو كولجكا برشدة علوم تعافيماتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجيء ولي محمد حسين أنا أرديك خليج جبسة كولج ماما أمينة كنا ترسن أورك أسمع وحرمانتي نهال كان كسر جديو أما كهذا المو إن جبنين. وصل قف كودا دقايق. مركي لقطة هنا إن سيد جدا وكلا قف قف إلا دقايق. هرت مهمة تقول إنه حتى قف إنا دقايق. The first one وقد ذلك شو حتى قف بس إنا دقايق. because هذا دقايق سيد وحلاقي لقطة جبن إنا problem كلا قف كوسي كنتو سيدا إن قف كاس ومحلي حيل دينو كجو أما إن نرفيا لجوان سومرك إن هذا دقايق number one then لو إن وصلت تجلسوا vantage كا لو نو إسكالك واحد أنا سجل الله قيبيا فاشل كي كراني على لوكال قيبيا سجل then مركل لو سدكتو كانوا حلا استرنام مالها استرنام كم حكوا دقين ريبسكا سجل ندور نعكلا أو سد حلو سيكل قيبيا ولا دو إن كو جهرية لفهد دحية لفهد دباشة يجن هكذا ضفها أنت وحدها شراطة وهذا تي عادو سكاري حديثي إن غلافي محلات منقص وحكوا لو باهنت غلافي سكالي بندج وهذا تقف عنده ودوسي somehow كيسس قرح جيران قف مركو جو إنه ديد جيرو أما ديد بحي جيران so ديد مركز كيجي سيدو كلا إنه تكاجو دوت بنتاجري دنا قف كميتان تسميه كلوس ممكن يقابل وكريس بنين كلوس so هو بهاي قف كنيس بتاعلقي أو اختار نفلوقي so ما دام هذا جرجارة تاي intii raadadi u sameyn kartid inaad dhiig wax ka joojisid suusan qofkaas uu riski kale uu sii gelin ama sameynayna baraatiga ku saabsan jabniin sida qofka looga gargaari lahaa qof markuu uu jabo gargaar loo sii lahaa horaan waxaan diyaarsanaynaa qalabkeena waxa u baahanahay alwaax ama baakad adeega daahilaysid waa inaad ku wareejisaa adigoo aan sameynayn dhaqdhaqaaq badan waxaan sameynay duubid gacanta jabtayaan duubnay waxaan sameynaynaa shakaalka markaad sameynayso waxa u baahan tahay masar hada helaysid ama bandaajo triangle waxaa kasoo wareejiyay qoorta كدي بأسك حرة ماما أمينو كوليج مسد كدوا يتوسو يتابسي أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجيء ولي محمد حسين وحنا أرديك خليج جبسة كوليج ماما أمينة كنا ترسن أورك أسمع أن وحرمانتنا كهذا المه جبنين إن وحكذا دونا دور موضوع تضاد موضوع حلقة نو خرج كترسن كم هردعة وحنقول لنا محل دهالف شقة قوة محيته مجاعيد لو يقانو قفك بنادم كم يقولوا ليه so intaas buu waxa lagu bartaa buugga anatomy and physiology laakiin waxa raba introduction yar maadaama mawduucan iyo ka hadlayo jabniin inaan kor ka soo bilaawno dinna isku xirno mawduucina ugu horeyn waxaan ka hadlaynaa hordhicin oo ah laf waa maxay laf okay laf waa qayb adag oo ka mid ah jirka bini'aadamka iyo xayawaanka waxayna samaysaa qaab dhismeedka lafuhu waa unugyo nool oo adag waxayna ka kooban yihiin macdan iyo protein so laf haddaan maqalno waa waxa annagana siiyo macnaa saan u taagsanahay ama qaab dhismeedka jirkeena midkana siiya waxaa la dhahaa laf so intaan galin shaqooyinka qabta lafaha so waxaan rabnaa inaan ka hadalno so lafaha qofka bini'aadamka guud ahaan totalka wuxuu qabaa maxaa la 206 lafood marka loo fiiriyo caruurta ay yihiin 270 something leedad ama 300
so sidoo kale lafaha waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc oo ah axial iyo appendicularka. So axialka oo la dhaho qaybta madaxa hidka ribiski iyo sternumka iyo vertebralka oo la isku dhahlaas axial iyo appendicularka oo la upper limbiski iyo lower limbiski iyo shoulderka ayagana la isku dhaho appendiculariska. shaqada qofta lafaha waxaa ka mid ah qaab dhismeedka oo wuxuu jirka siiyaa qaabkii taageerida qofka iyo sidoo kale number 2 wuxuu qabtaa ilaalinta wuxuu ilaaliyaa xubnaha muhiimka sida ay ka mid tahay wadnihii sanbabka iyo ka mid yihiin iyo maxaa la asiga iyo stern maxaa la vertebraha oo ilaaliya asagana xangulaha waxaa ka mid ah dhaqaaqa oo laf walba waxa ku dhagan muruq oo laftan waxay saacidaysaa qofka inuu just dhaqaajiyo muruqaas iyo sameynta dhiigga oo inta badan bone marrow laga sameeyo unugyada xasxas iyo kaydinta macdanta ay ka mid yihiin calciumka iyo phosphorka. Mama Amino College masadkeedu waa itusoo itabsi